sanadkii 1808 Suldaan Maxamuudkii labaad ayaa xukunka la wareegay kadib markii ciidankii Janissaries ay dileen suldaankii ka horreeyay isaga. Wuxuu arkay in xalka kaliya uu yahay in la tirtiro ciidankani Janissaries. sanadkii 1826 ayuu si buuxda u cirib tiray ciidankani asagoo ku duqeeyay madaafiic aad culus. Tanina waxa ay furtay xilli cusub oo dib u habeen ah, balse sidoo kale waxay ka tagtay dowladdii oo aan wax ciidan lahayn. dalalka Yurub ayaa markaasi ka faa'iideystay fursadani, gaar ahaan Ruushka, waxayna qabsadeen dhulal badan oo hoos imaan jiray Cusmaaniyiinta. intaasna waxaa sii dheer waxay dhiirigeliyeen qowmiyadaha Kiristaanka sida Giriiga, Serbiya, Bulgaria iyo Armenia in ay ku kacaan Cusmaaniyiinta oo ay ka hor yimaadaan. kacdoonkii Giriiga ee 1821 waxa uu horseeday burburinta ciidanka badda ee Cusmaaniyiinta ee dagaalkii Nafarino ee 1827, taas oo u sahashay Faransiiska in uu qabsado Algeria sanadka markuu ahaa 1830. inkasta oo Suldaan Maxamuudkii labaad uu sameeyay dib u habeen, haddana waxay ahayd dib u habeentaasi mid gaabis ah. dowladdana waxaa soo wajahay masiibooyin waaweyn. Maxamed Cali Baasha ayaa isku dayay isagana in uu ka go'o Cusmaaniyiinta oo uu sameeyo boqortooyo Masri ah, balse Yurub ayaa ka hortagtay si aysan dagaal weyn u dhicin. markii dambe dib u habeen kale ayaa la sameeyay, laakiin Yurub ayaa sii faragelisay, taas oo keentay cadoono iyo kala go' badan. boqortooyada Cusmaaniyiintana waxaa lagu neenaasi jiray xilligaasi neenaasta ah ninkii buka ee Yurub. Suldaan Cabdulxamiidkii labaad ayaa xukunka qabsaday, wuxuuna isku dayay in uu mideeyo muslimiinta oo dib u soo celiyo khilaafada Islaamka. wuxuuna sameeyay horumar dhinacyo badan ah. wuxuu diiday in uu Falastiin siiyo Yuhuudda, iyagoo xitaa u ballan qaaday in laga cafin doono deymaha lagu leeyahay dowladda Cusmaaniyiinta haddii uu bixiyo dhulkaasi Falastiiniyiinta. balse ugu dambeyn wuu diiday arrinkaasi oo wuxuu yiri ma soconayso arrintaani. waxaana ka mid ah hadalladiisii, wuxuu yiri inta aan noolahay dhul muslimiinta Yuhuud ma qaadanayso. si kastaba ha ahaatee, khaladaad ayaa dhacay sida fashilka ka hortagga qabsashadii Ingiriiska ee Masar sanadkii 1882. ugu dambeynna ururkii lagu magacaabi jiray Midowga iyo Horumarka ayaa afgembi ku sameeyay boqortooyada Cusmaaniyiinta 1909, waxayna xilka ka qaadeen Suldaan Cabdulxamiidkii labaad. waxaana xilligaasi boqortooyada ay gashay gacanta 3 nin oo lagu magacaabi jiray saddexda Baasha. waxa ayna kala ahaayeen Enfer, Talaat iyo Jamaal. raggaasi ayaa hoggaanka u qabtay boqortooyadii Cusmaaniyiinta, waxayna ku dhaqaaqeen siyaasad qarannimo oo lagu dhisayo Turki, taas oo markii dambe keentay kacdoonno badan iyo dagaallo oo ay ka mid tahay dagaalkii Balkans. sanadkii 1914 Cusmaaniyiintu waxay ku biirtay dagaalkii koowaad ee adduunka, taas oo keentay burburkii ugu dambeeyay ee Cusmaaniyiinta. inkastoo ay guulo gaareen bilowga dagaalka, haddana ugu dambeyn waa laga adkaaday oo halkaasi waa looga gacan sarreeyay. sanadkii 1916 Ingiriisku wuxuu la heshiiyey Shariifkii Maka xilligaasi u fadhiyay Cusmaaniyiinta oo lagu magacaabi jiray Shariif Xuseen, si uu bilaabo kacdoono oo carabta ay uga soo horjeedo Cusmaaniyiinta. tanina waxa ay keentay jabkii Cusmaaniyiinta iyo kala qaybsanaanta Bariga Dhexe, iyo in ay yimaadaan heshiisyadii loogu magacdaray Sykes-Picot iyo Sevres. kadib dagaalkaasi koowaad ee adduunka, Mustafa Kemal Atatürk oo ka mid ahaa 3 nin ee hogaaminaysay Cusmaaniyiinta ayaa afgembi ku sameeyay boqortooyada Cusmaaniyiinta. wuxuu halkaasi ka aasaasay dowladda Turkiga ee maanta arkayno. 3 Maaris 1924 ayuu si rasmi ah u baabiyay khilaafadii Islaamka, wuxuuna eriyay qoysaskii Cusmaaniyiinta. sidaas ayayna ku burburtay boqortooyadii Cusmaaniyiinta kadib 625 sano oo ay ka tirinaysay dunida, oo ay soo xukumeen 36 suldaan. sidaas ayayna ku samaysmeen dalalka Bariga Dhexe iyo xuduudahooda, maadaama ay burburtay quwaddii kor ka maamuli jirtay ee Cusmaaniyiinta. ugu dambeyntii, haddii aad ka heshay oo halkaani soo gaartay, fadlan like saar, siina share gare muuqaalka, kana mid noqo saaxiibada mar walba noogala socda barteennan ee Ogaal Sugan. aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin. inta muuqaalkan iyo midka xiga aan ku kulmayno waxaan idin leeyahay amaano Allah.